السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan walaal shacabka YouTube ka aniguna waa Abduqaadir Xasan Dooliye. Maanta muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa warqadan oo sida halkan uga jeedeen gorgorkii ayaa ku jira inta idin tusi karo information ku qoran laakiin halkan waa warqada dhalashada ee wadanka Jarmalka. Warqadan dhalashada iyo sharciyadan maxay ku kala duwan yihiin? Keese markaasi muhiim ah qofka inuu haysto markii uu meelaha qaar tagayo. Haddaba warqada dhalashada iyo sharciyadan kee muhiim ah markii aad la rabo informationadaada in la helo. Muuqaalkan ayaan kugu faahfaahin doonaa. Haddii aad hore u ogeyd waad ogeyd, laakiin haddii aad hadda ogeyn ayaan kaaga faa'iidin doonaa insha Allah. Haddaba haddii ay tahay markii kugu horreysay barnaamijka shacabka YouTube ka soo booqato waxaan ku leeyahay ku soo dhawow halkan waa YouTube kaagi si aan wax badan u kala faa'iideysano. YouTube ka subscribe inoo saar waa inoo muhiim waa inoo dhiirigelin. sidoo kale asxaabtii hore dad ka mid tahana waa ku maasantahay inaad YouTube ku xiran tahay isla markaana muuqaalada aan halkan soo dhigo aad like inoo saartid aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigii aad ku bixisay inaad muuqaalkan daawatid. warqadan waa warqada dhalashada ee wadankan Jarmalka. markii uu qofku ku dhasho wadankan Jarmalka ayaa la siiyaa waa warqad dhalasho. marka warqadan muuqaal kale ayaan uga hadli doonaa. dhowr warqado oo dhalasho ayaa jira laakiin muuqaal kale ayaan uga hadli doonaa. laakiin hadda muhiimadeedu waxay tahay warqadan dhalashada ee ku taala calaamada gudaha uga jirta halkan daayadu ka tusato ugu jeedaysiin laakiin gudahan ayay uga jirtaa. haddii ay kamerada aad ka arki kartiin iyo in kale ma sheegi karo. waa warqada dhalashada ee wadankan Jarmalka iyo baasaboorradan ama travel documentyadan. haddaba labadooda kee muhiim ayaa ah haddii markaas informationadaada ama warbixinadaada loo baahdo. marka kaba soo qaad maanta adiga ilmahaaga israacay waxaa tagteen xafiis muhiim yaa ah labadan. haddii uu ilmahaaga baasaboorradan haysto ama ID card-kaba iskaba dheh ama sidoo kale warqada dhalashada hadduu haysto kee muhiim ah ayaa markaasi u qaadaysa xafiiska oo aad geynaysaa oo mar walba markaasi laga tixraacaya qofkan daatadiisa saxda. badanaa waxa dhacdo kale tusaale kale waxa laga yaabaa warqada dhalashada in marka hore lagu siiyo oo ilmaha kadib sharcigan loo sameeyo. waxa laga yaabaa marka qaar in magacyadooda kala duwanaadaan oo magacyo kala duwan ay ku qoran yihiin sababtoo ah waxa laga yaabaa inaad adiga bedelin markii midka saxda lagu siiyay oo marka wali ay magacyadu kala qaldan yihiin ama haddii ay xataa magacyadooda ay sax leeyihiin xafiiska kee u qaadaysaa. badanaa waxa muhiim ah warqada dhalashada muhiim ma aha. warqadan dhalashada xafiisyada markaad tagaysid ama bangiyada tagay sidoo kale ama meelaha kale aad ilmahaaga geynaysid warqada muhiim ma aha. warqadan waxa laga yaabaa kale iskuulka kale inuu ku weydiiyo ama kindergarten ama meelaha xanaanooyinka ilmaha macnaha oo kale inay ku weydiiyaan waa laga yaabaa. laakiin badanaa daatada warqadan ku qoran muhiim ma ahan sababtuna ku sheegi doonaa. waxa muhiim ah baasaboorkan ayaa muhiim ah sababtoo ah baasaboorkan waxa uu uga muhiimsan yahay warqada. baasaboorkan marka ugu horeysa waxa ku qoran lambar aad leedahay. lambarkaas waa lambar guud oo aad leedahay oo markaasi dadka aad uga socontaa qof walba lambarka uu leeyahay halkan ku qoran yahay. marka haddii aad meel u socotid oo kale lambarkaas aad leedahay ayaa la gelinayaa daatada waxa soo baxaya information kaaga oo dhameystiran. laakiin warqadan haddaad wadatid warqadan marka ugu horeysa waxa ku qoran adi magacaaga adiga registration number oo kale ku qoran oo ah lambarka ku registeraysan tahay ayaa ku qoran. waa lambar muhiim ah. sidoo kale dhalashada ku qoran magaca ku qoran xilliga dhalatay maalintaad dhalatay iyo sidoo kale saacadii aad dhalatay xataa way ku qorantaa. hooyada magaceed aabaha magaciisa ayaa warqadan dhalashada ku qoran. marka warqadan waxay muhiim u tahay waa ama iskuulka inaad geeyso sidoo kale ama berito ka maalin haddii ilmahaagu meel kale ay tagaan oo kale inaad dhahdid warqada dhalashada ilmahaagu kuwan ilmahan waxay ku dhasheen Jarmalka ayay ku dhasheen inaad dhahdid. laakiin baasaboorka sida caadiga ah wuxuu leeyahay lambaro ku qoran oo halkan kugu yaala. lambarkaas ku qoran ayaa markaasi aad ku duuleysaa. haddaad wadan kale tagtid oo kale lambarkaas ayaa la qoraya daatada la gelinaya automatic waxa soo baxaya information kaaga guud ayaa soo baxaya. marka baasaboorka ama travel documentiga lambarka ku qoran
ayaa ka muhiimsan warqadda dhalashada. Marka badanaa ogow meelaha qaar xafiisyada qaar markaad tegaysid haddii aysan warqad dhalasho kuu dirin ha geyn warqad dhalasho, laakiin waxa geysaa baasaboorada ama sidoo kale ID kaarka laftirkiisa waa muhiim. siiba baasaboorka aad ayuu usii muhiim yahay. ID kaarka laftirkiisa haddii macnaha baasaboorkan aada wadan ID kaarka mar ayuusan ku anfacayn oo lagu leeyahay waa qasab inaad travel documentigaaga aad wadatid. marka adoona travel document aada wadan macnaha ID kaarka kaligiis kuma shaqayn karno kale ayaa lagu leeyahay. marka badanaa waa muhiim adigu sidaas u ogow insha Allah. inta muuqaalo kale oo xiiso leh ku kulmi doono waxay ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.